wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland oo galabta shir jiraayad ku qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu sheegay in ciidanka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ay fashiliyeen isku day dowladda federaalka Soomaaliya ku qalqalgelinayso nabadgelyada magaalada Kismaayo sida uu hadalka u dhigay injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shirkiisa jiraayad sidoo kale ku sheegay in ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland dhabarka jibiyeen qorshe ay dowladda federaalku ugu tala gashay in ay ku burburiso nabadgelyada ka jirta magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in dowladdu ay adeegsanayso kooxo maleeshiyada sida uu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shirkan jiraayad u qabanay inaan bulshada reer Jubbaland iyo Soomaaliyeedba la socodsiino wixii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka Jubbaland oo dad badan ay provocation ka sameeyeen wariyaal badan ay wax ka qoreen waxa maanta magaalada imanayay wafdi ka socda dowladda Mareykanka safiirkii Soomaaliya u fadhiyay iyo generaalkii ciidamada Africom haystay Stephen J Townsend waxaa dhacday in ay dowladda federaalku ay ka shaqaysay in Cabdinaasir Seeraar iyo xidig ay abuuraan in ay qas iyo qalalaasa geliyaan imaatinka safiirka iyo generaalka arrintaasi xogteeda shalayba waa la helay waana laga digtoonaa in ay qalalaasa magaalada geliyaan checkpointiya ayaa areadooda laga sameeyey checkpointi hore u jiray wuu jiraa kuwa kala aagana waa loo sameeyey marka meeshaasi isku dhaca ciidanka ayay ku sameeyeen oo ay xabado kusoo rideen wax dhimasho iyo wax dhaawac midna ma jiro alxamdulilah si nadiifa ayay ku istaagtay waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa ummadda reer Jubbaland iyo caalamkaba aan ogeysiinayna in muddo 6 bilooda aan u adkeysanaynay raggaasi iyagu u adeega dowladda federaalka maskaxdooda iyo araadooda ku socda wixii intaa ka dambeeyana aanan u adkeysan doonin wixii ka soo baxana ay iyagu ka jawaabi doonaan dowladda federaalku mas'uuliyadda ay qaadi doonto intaasi waa NFSNF wax ka dambeeya oo dowladda Jubbaland ay sugi doonto ma jiro beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intii aan sulx ku xallin karnay oo aan dhaqan iyo maxaa la yiraahdaa aqoonyahan iyo cid walba iyo shuyuukhba u adeegsan karnay waan u adeegsanay intaa ka badan inay qas iyo qalalaasa Jubbaland ka sii ridaan intii lacag loo soo diro ma qaadanayno mana sii socon doonto wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale ka hadlay safarkii maanta magaalada Kismaayo ay ku yimaadeen taliyaha howlgalka ciidamada Afrika ee Africom Stephen Townsend iyo sidoo kale safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto kuwaas oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe waxaan kaloo rabay inaan idin la socodsiiyo wafdigii yimid si fiican buu ku yimid si nabad ku yimid shirkiina way galeen safiirka Donald Yamamoto ayaa soo horeeyay madaxweynaha iyo wasiiradii iyo isagii shirki way dhacay si fiican buu ku dhacay arrimaha laga wada hadlayna waxay ahaayeen arrimaha amniga xaaladda Jubbaland hadda ay ku sugan tahay arrimaha gada ka socda iyo qaabka loo wada maareyn lahaa si fiican ayuuna ku dhamaaday waxaa ku soo gaaray generaalkii ciidanka Africom General Stephen J Townsend oo isna si fiican loogu soo dhaweeyay meesha oo shirka ay wada galeen madaxweynaha wuxuuna ku dhamaaday si fiican arrimaha ugu weyn ee laga hadlayayna waxay ahayn arrimaha amniga iyo kuwii dagaalka ee lagula jiray shabaabka oo iyagana la rabay in si fiican kor loogu sii qaado ciidamada Mareykanka waa la socotaan ciidanka Jubbaland iyo ciidanka Amisom iyo kuwa SNA inay la howlgalaan oo ay ka caawiyaan dhinacyo badan marka waxaa la qoondeynayay in howlgallo adag la sameeyo arrimahaasuna u yimid jananku si fiican baana la sula afgartay si nabadayna ku noqdeen waxaan idin la socodsiinaynaa wixii soo kordha waadna mahadsantihiin
khilaafka u dhaxeeya dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ciidamo geysay gobolka Gado iyadoona maamulka Jubbaland ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ujeedka ciidamada ay halka u geysay ay tahay inay ku burburiso maamul goboleedka Jubbaland